gargaarka WFP ee sanadkan waxaa loo adeegsan doonaa mashiino lagu kaydin doono sawirada iyo macluumaadka qoysaska barakacayaasha 7 milyan oo lacagta South Africa ah ayaa loogu deeqay barakacayaasha ku nool Muqdisho taasoo u dhiganta 500 oo kun qoys walba oo ka tirsan barakacayaasha bil walba waxay heli doonaan $80 taasoo ka dhigan in mashruucan uu socon doono 6 bil dawladda South Africa oo kaashanaysa WFP waxay daryeeli doonaan dadka barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho si gaar ah marka kan barakacayaasha waxaa la siin doonaa kaararkan oo lagu xusay dhammaan macluumaadka qofka waxaa ku jiri doonta lacag taasoo kaliya ay dadka barakacayaasha ku iibsan doonaan waxyaabaha quduldureeriga sidoo kale WFP waxay sheegtay in la taageeri doono dadka ay saameeyeen fatahaadka uu sameeyay webiga Shabeelle kuwaas oo ku nool gobolada Shabeellaha Dhexe Iran iyo Shabeellaha Hoose. Machines and several you can have up to 3 person in the household. Laurenta Bakere wakiilka WFP ee Soomaaliya waxa uu sheegay in 3 milyan oo u badan haween iyo caruur Soomaaliyeed ay wali u baahan yihiin sidii ay u heli lahaayeen cunno iyo biyo nadiif ah. There are however still close to 3 million people in Somalia who continue to be in need of assistance. qoysas hor leh ayaa isaga barakacay deegaanadooda oo ku yaala gobolada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose kadib markii uu fatahaad sameeyay webiga Shabeelle. Si hayaa xilka wasiirka gargaarka Cilmi Cumar Ceynsana waxa uu sheegay in la taageeri doono qoysaska Soomaaliyeed ee ku barakacay fatahaadda webiga. Dawladda South Africa ayuu ugu mahadceliyay dhaqaalaha ay ugu deeqday barakacayaasha Soomaaliyeed. waxaan uga mahadcelinaynaa mar koowaad iyo mar labaadba dawladda South Africa oo deeqdan soo gaarsiisay waxayna deeqdani ay socon doontaa muddo 6 bilood ah 6 bilood oo la siin doono qoysaskii danyarta ahaa ee abaartu saameysay qaxootiyada barakacayaasha ah ee ku nool Soomaaliya. Aways Maxamuud Jilcow, Cable TV, Muqdisho.